بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي دمان ومدايدا ميل كستا جوجتان I hope دمانتين على دنتين عافماد قبطان نمحسنتين ميل كستا حلي كستا إيا ساعات كستا إذنتين الله سبحانه وتعالى إذن كو حفتين نمعا لنا كو جرتان كسو دوادا جنان كي قوانو هنادية I hope دمانين على دنتين دمان ولا لها إيقا ولا لها عصب ولا لها إيقا هوري دمانتين welcome back وما تنتين جساك الله خير إن شاء الله بإذن الله كرينتين فيديو كده قلين إن ولا شيء أيام هوس وحي كومنتيجا يقصوا قرط النادي فيديو يدا عدكاب وضعيف مركا ولا السيدي يعني دي شيء أنا فيديو يدا يدي قدام بيونه وحن استعماله ميكروفون مركا وبكانوا حتى خمارك يقولون هاي مركا I don't know ما ولا لا أي فيديو عدكاب قابين هم كيجا قابن iisoo sheega fadlan maalintii aan bilaabay microphone-kana waan idin soo weydiiyey walaalaha hadda waxay igu yiraahdaan codkaagu waa okay marka fadlan waxaa idinka codsanaya iisoo sheega codkaygu weli ma daciifba aniga fideoyadayda markaan dhagaysto codkaygu okay buu ileeyahay laakiin bal iisoo sheega walaalayaal fadlan bacdayn insha allah bismillaahi kariim fideoga kan waxaan kaga hadlaynaa walaashay gabadha ayaa commentiga waxay igu soo weydiisaa baayaa inaan ka soo hadlo hooyooyinku sida ay budgetka u sameeyaan naftooda markay noqoto waxay igu tidhi walaalay hooyooyinku shaqo badan bay qabtaan markaa sometimes nafteeda u laawaan sidii ay budget u samaysan lahaayeen ayna self care ay noqoto hadday noqoto massage hadday noqoto sayloon hadday noqoto cidiyo hadday noqoto anything oo hooyooda self carekeeda walaalay sidii aan u budget karan loo soo sheeg marka waa run maasha allah iyo midda kale ay weydiisayna waxay ahayd hooyooyin baa jira inay rasuulkii ku noqdaan rabaa laakiin confuse oo garanay waxay sameeyaan waxay bartaan marka waxay ku dayanayaan saaxiibadahood waxay baranayaan inay bartaan iyaguna ama aadaan marka taasina waa run insha allah bismillaahi kariim waxaynu ku hormaraynaa hooyooyinka budgetka marka horta waa run haddaad hooyo tahay saluudiyo maasha allah you doing amazing job hooyooyinku waxay qabtaan the hardest job haddana sidaas oo tahay the most rewarding weeyaan dadka the most amazing job maasha allah ilaahay hooyooyinkana xifdiyo ilaahay intii hooyo ahna awlaadaha u xifdiyo iyadana ajar iyo xasanaad rewardka ka siiyo hooyadu sometimes way isilowda even in general dumarka dhan markay noqoto dumarku ilaahay subxaana watacaala ayaa wuxuu inaga dhigay caregiver by nature so inaynu dadka kala caregareyno baynu nahay because caregivers baynu nahay sometimes waxay noqotay inaynu shaqada xoogga saarno inaad odagaaga xoogga saartid inaad caruurta saartid inaad guriga hawshiisa saartid laakiin adigu aad isilowdid ama aad adigu noqotid qofka ugu dambeeya oo wax qabsada waxaan maqli jiro la odhan jiray hooyooyinku marka caruurtan wax cunaan oo ninku cunaba wax cunaa fearing you are the last person marka qofka bini'aadigana haddaan isagu naftiisa take care is very difficult inuu qof kalena 100% siiyo sababtoo adiga waa daalanta aan happy baa tahay markaanada naftaada care kareen xoogaa waad luudaysaa marka waa very important hooyadu special hooyadu inay take care karayso inay budget gaarana yeelato marka sidee buu qofku budget gareyn karaa marka walaal budgetkii wuxuu weeyaan waa ku xidhan tahay dhaqaalaha kusoo galaa familygaagu intuu yahay lacagta waxyaabaha aad jeceshaho samaysid ma timahaad wiig walba soo samaysataa ma massage baad aadaa ma cidiyahaad soo samaysataa ma cilaanba waxay ku xidhan tahay hooyadu waxay rabto laakiin really waxa muhiima inuu hooyadu ay yeelato lacag u gaara $50 noqotay $20 noqotay $100 noqotay oo ay guilty free tahay sababtoo inta badan waxaa dhacda lacagta markay damacdo hooyadu inay iyadu isu soo isticmaasho waxaa laga yaabaa inaad guilty dareento tirado oo alla caruurta u baahan alla guriga u baahan alla maanaa lacagta isu quuri karaya oo aad waxba isu quuri weydid ama inaad waxaan budgetkaaga ku jira ama aadan awoodin aad samaysid marka in order aad taas guilty free aad u dareentid waxaa muhiima inaad budget yeelatid naftaada oo self carekaaga anything aad rabtid aad kusoo samaysid ilaahu maad intaad qaadatid ma qof siisid ما هل ما نكسر لما يسترت لكن مركا عاد استعمال لعقتها وحكي وقولنا سأنا أنا قلت ترى من إن عادنا نفط هذا كير كريستو واحد وبهم تقول أشياء تسميه قف كستو إن جمد وحبوش عليه قف بمساج قف بعلاج شعل قف إن موفي عاد شعل قف بشعل إنه بنانك فريسو so do whatever عاد شعل شهاي لكن نفط هذا كير كريست سلف كير قاعدوا مالين ويك هالمالنا كنقط ساعدنا كنقط ميل عاد سو مساج شيء تي مهاجس whatever عاد شعل شيء بنانك إسكاقاد أف قاعد بشي schedule samayso kalacagtu waxay ku xiran tahay how much aad u baahan tahay ma weeklyba ma bishiiba ma labadii weekba laakiin lacag budgetkaaga ku dar $100 noqotaya $50 noqotaya $20 noqotaya aday ku khusaysa qofkay ku xiran tahay waxaa jirta gabadha last year 2020 aan budget la sameynayay $50 buu ahaa beauty budgetkeedu waxaan ku $50 ma kugu filan tahay haabay igu tidhi
okay maasha allah waxay ku tiri walmart iyo target baan ka adeegtaa everything aan u baahanay marka igu filan waxaa dhacday markaa deyman badan baa gabadha lagu lahay markaa bixinaysay hadda bisha tan 8aad ayaan maalin dhowad wada kulanay oo aan ka caawinayay lacagta investinka iyo waxyaaba iyo savingkeeda iyo emergency fund iyo waxaas markaasa waxaan ku yiri $50 meesha ku qoran kugu filan wallahi marmar wiga yaraadaa bay tiri waxaan ku yiri maadaama lacagtii deynka aan dhamaystirtay hadda maad kordhisid ama 100 ka dhigo ama 150 maasha allah usaatoontid aad ka yeesho wallahi waa good idea bay tiri marka way kordhisay marka waxay ku xiran tahay xaaladda aad ku jirtid iyo lacagta kusoo gasha laakiin whatever uu noqotoba wax samayso anigoo kale hadda waxaan sameeyaa waxaana dadka percentage ka jecel marka anigoo incomekii kasta oo isoo gala 5% ayaan ka saaraa 5 boqolkiiba $5 weeyaan 5 boqol waa 25 kunkii waa $50 so anything oo kusoo galaya 2 kun kusoo that 5%ga akoon gaara buu leeyahay akoonkaas lacagta waxaa ku jirta beautyga ku ridaa lacagta self careka weeyaan 5%gaad hadhow hadan doono waa sii kala qaybiyaan laakiin maadaama 5taasi ay halkaa ku dhacdo hadday aniga noqoto hadday familygayga noqoto hadday friend noqoto sidoo kale waxaan leeyahay dad badan oo maadaama dadkeena qurbaha jooga ajnabi badan baa aniga la shaqeeya ajnabi badan baan friend lahay marka maadaama iyaguna way ii keenaan haddii qof u dhasho gift baan u siiyaa haddii birthdaygooda u noqoto haddii ay guursadaan anything oo markaas milestone oo noloshooda kusoo kordhay waa gift baan siiyaa iyaguna sidoo kale gift bay sidoo maadaama aanan hadhuto struggle ugeyn that 5%gaasi waxay aadaa anything oo self care hadday aniga noqoto hadday familygayga noqoto hadday friend noqoto hadday coworkers noqoto sometimes bilbil dhanbaana waxba bixinin oo cidna aanay noqon bilbay 2 qof noqota so laakiin naad money waa lacag meesha ay taalla haddaan arko lacagtu isku farbadato oo weli meesheedii taalla waa ka saaraa marka waxay ku xirantahay adiga waxay kusoo gala iyo sida hadba jeceshahay lacagtaas waxaan kaloo bil walba aan ka saaraa 250 oo budgetkayga ku jirta 250 baan leeyahay oo ah beauty budgetkayga maadaama aniga badanaa skin care baan gataa maadaama aan skin careka aan gataan waxoogaa expensive bishan oo kale serumka iga dhamaanaya waxaa laga yaabaa inaan serum u baahdo creamkiiba iga dhamaanaya cream ina u baahdo lotion ina u baahdo timaha saliidooda ina u baahdo whatever guriga sidoo kale marka daad maniga 5%iskaad anything gabdho yarar haddaad leedo kalo timaha usoo sameynaysa inamadaada yarar haddaad rabto inaad timaha usoo samayso sidoo kale so waxyaabahaas oo dhan waxay aadaysaa aniga daad bay aadaa adigana sidoo kale waxaad samayn kartaa it doesn't have to inay 5% noqoto laakiin lacag kuu gaara ood caruurtaada u gaara iyo adiga marka hadda hooyadaynu ka hadlayna lacagta kuu gaarka whatever aad rabtid kusoo horso walaalo qofku markuu naftiisa takeer garayo alxamdulilah waxaas isaguna wuxuu muhiim u noqdaa inaad tagtid maalintaa waxaad dareemaysaa happy waxaad dareemaysaa farxad waxaad dareemaysaa relaxation aniga 4 weekba waxaan tagaa shaqeeyo aan gacmaha ka shaqeeyo maskaliskayga garbaha ayaa waxay noqdaan tay markaa 3 sannadood ka hor ayaan bilaabay deep tissue massage wax la yiraahdo dhiibkaasaan taga habar yar kuuriyana baan leeyahay fariidadaho saas ay soo kala jabisaa maalintaa markaa maalintaa waxaad aniga dhan waxaan dareemaa relax maalmihii ugu horreysay aan bilaabay way yaabteen waxay ku tinaa maxaa kugu dhacay saasanba u tignaa aniga dhan hadda laakiin maasha allah waa la qabsaday aniga dhan relaxi maskalkayga xataa wuxuu maskalkeenu ma og tahay markaynu saa u fadhino kale haddaan u fadhiyo kale maskalkeenu tayb buu noqda halkan garbaha dhabarka marka wuxuu u baahan yahay maskalka in la masaajeeyo uu noqdo uu relaxation sameeyo marka whatever adiga kuu shaqeeya aniga bisha maalinta ay soo samayso waa anoo maasha allah baan imaada timaha sidoo kale every 3 months waan tagaa waxaan nafaqaan saynoonkaan tagaa nafaqa iisoo mariyaan wax kale ima sameeyaan nafaqa iisoo mariyaan sidoo kale wejigayga every 6 to 8 weeks aduu 2 bilood ilaa 3 bilood ayaan tagaa waxaa laygu soo sameeyaa deep cleaning hydrationka la yiraahdo whatever markaa jecelahay marka maasha allah maalinta anoo soo warwarayaan imaadaa maalintaa waxaan imaadaa anigoo maasha allah relaxa markaa next dayga xataa familiga haddaad u timaada caruurtaada happy baad tahay iyaga dhan waad iska farxsantay ilaa adiga dhan qof laga soo shaqeeya baa tahay marka waa is very important I agree inay hooyooyinku u baahan yihiin lacag u gaaro oo guilty free oo waxay doonaan ku sameeyaan marka insha allah bismillaahi karim nafteena aynu keer garayno haddii oday baa beri professor aan aada u jeclaaya wuxuu igu yidhi weligay ma ilaawin kelmadaas waxay noqotay kelmad ka noqotay part of my lifekayga wuxuu igu yidhi in order aad qof ku takeer garaysid qofka biniaadmiga inuu qof takeer gareeyo intaanu sameyn waa inaad naftaada takeer garaysid in order aad qof kale wax ugu qabatid
take care of yourself, take care of your mind, take care of your healthy. kabacdi adiguna waxaad noqonaysaa qofkii kale. adigu markaad caafimaad qabto caruur caafimaad qabtaad kursanaysaa, because adigiibaa mentally okay, adigiibaa healthy, adigiibaa caafimaad qaba, adigiibaa qurux badan. you want everybody oo lifekaaga soo galaana inuu sidaad oo kale noqdo baad rabtaa. laakiin haddaad adiga miserable tahay, qofkii agtaada ahaana miserable buu noqonaya. markaad naftaada soo karkarisa waxaad dareemaysaa inaad naftaadaad jeclaanaysa, quruxdaadaad jeclaanaysa, inaad ishabaysid baad dareemaysa, ilmahaagiibaad ilmahaagiibaad quruxdooda ka fikiraysa, gurigaagiibaad ka fikiraysa, ninkaagiibaad ka fikiraysa, oo adna qurux badan oo adna ishagaaji. laakiin haddaa adigii dhan aanaysan, waxa weeye markaa qofka biniaadamka self care marka uu sameeyo runtii waxyaaba badan baad maynkaaga iyo maskaxdaada ka bedelma. it makes you happy. qofku active buu noqdaa. ileen biniaadmi baynu, adigu tinkii abood maanta markaad leebisatid oo timaha hagaajisatid ood baxdo waad isjeclaanaysaa. maalintaad guriga fadhidid oo baatiga xidhantoo saa isaga dayacantayn adiga dhan debress iyo waxaad iska dareemaysaa tire iyo. laakiin markaad banaanka u baxdo soo warwareegtid you feel good. marka nafteena waynu u baahannahay insha allah bismillahi kariin. hooyo haddaa tahayna uga howl badan baad qabataa maalintii, wiigii, waxay doonta ha noqoto. take like couple of hours, 3 hours aad naftaada kusoo karkaraysid, relaxation soo samaysid, take care of yourself kaaga aadid, coffee shop soo fadhiisatid, meelaha soo aadid, take care of yourself kaaga. self care waa very important. skinkeena aynu hagaajino, jidhkeena aynu hagaajino, budgetkana ku dar. budget sida aad biilka gurigaaga, cuntada groceryga aad ugu dartid ugu dar budgetkaaga beautygaaga. that's it. ku dar $50 noqotee, $5 noqotee, whatever ay noqoto, that's it. weekii fridayda noqotee, saturdayda noqotee, $20 qaado, meesha sayloonka aad, lacagta aad budget garaysa aad, saa doontid kasoo yeelo. so insha allah bismillah kan video kan wuu dheeraanaya. marka waxaan sameynayaa video labaad ayaan soo sameynaya part 2 oo qaybta educationka kaga hadlayo. ma jecli videoyadaydu inay aad u dheeraadaan. insha allah bismillah kan until next time, khayr ayaa idin rajaynaya. snapchat-kaygan hoos kusoo qoraya haddaa any question qabtid, haddaa rabtid inaad qof ahaan ila hadashid. I know this is public inuu yahay. insha allah bismillahi kariin igu darso message soo dir. marka I hope walaashay inay taas xoga clarification ku samaysay. marka insha allah bismillahi kariin khayr ayaa idin rajaynaya. until next time, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. please videoga like ta saara, share gareeya and subscribe. until next time, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.